بسم الله الرحمن الرحيم الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. هذا القرآن أيام إن شاء الله وأنو سوق أن كفر واحد كنا إن شاء الله سمر وكده شو واحد. هذا وحين يقول لنا حفرة ينوفر يا برنامجك قدوميها جارية خاتمه النرويج بشير أو جامع عمر عيسى بشير بسرور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان جالية dadka martida sharafta leh ee dhammaan isugu yimi wasalaamantay anigoo ku hadlaya magacayga Bashiir aw Jaamac Umar Ciise anigoo ku hadlaya afka guddiga jaaliyada Khaatumo ee Norway anagoo ah jaaliyada Khaatumo State of Somalia 12 January 2011 iyadoo ay ka soo wareegtay sanad guuradii koowaad ee caawa lagu xusayo dowlad goboleedka Khaatumo State of Somalia waxaan bogaadin hambalyo u dirayaa ummadda Khaatumo gudaha iyo dibadda meel kasta ay joogaan iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee caawa meel kasta oo dunida joogta naga qayb qaadanaya waxaan hambalyo u diraynaa madaxweynaha dowlad goboleedka jaaliyada Khaatumo State Maxamed Jaamac Xal Indhasheer waxaanu hambalyo u diraynaa guddiga fulinta golaha 12 ka kooban ee Khaatumo State of Somalia waxaanu hambalyo u diraynaa dhammaan guddiga dhaqameedka golaha sare ee Khaatumo State of Somalia waxaan caawid leeyahay hadal badan waa soo nadi wax badan waxay gelin waa soo sameynay hadal badan uma baahnidin caawa farxa ciyaara caba tamaashada kusoo xafladda caawa dad fara badan oo kala duwan ayaa jooga dhankii jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Oslo ama dalka Norway sidii waaxigeeda badankood waa ku dheeyeen waxa kale oo jooga odayadii oday dhaqameedkii waxay naga jooga aqoon-yahanadii waa naga jooga siyaasiyiintii waa naga jooga waxa kale oo meesha ka maqan iyaduna dhankii suugaanta waxay naga jooga nimankii hal doorka lahaa gabayada waxay naga jooga gabdhihii buraamka iyo garaarka ku caanbaxayaba marka inaga hawlahaas oo wada gudbayna وقالوا بدنا نحتاجنا وقالوا بدنا بيرنا مرة كنا وحنو يرنا نقول برنامجي وذكرني عبد الناصر حاج عيسى وينوغا تاريخين يا جالية خاتومة نروي تاريخين يا يهرب سومرتي جالية نروي ينوغا تاريخين يا يهرب سومرتي عبد الناصر سومرتي بسم الله الحمد لله waxaan salaamayaa dhammaan jaaliyada Soomaaliyeed ee Norway ka soo qayb gashay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay Khaatumo asaaskeedii hal sano ka hor waxaan kale oo salaamayaa guddigii soo qabanqaabiyey xafladda tan inay dhacdo waxaan leeyahay jaaliyada Soomaaliyeed Khaatumo
وصومالي صومالي وقاتم شاليت سوالات عن شيء يعني لا خاتمه وحا سببين إن أساساته كل خاتمه سوى رمضان أنا وير شاليت وان أوبرا شاليت خاتمه شوفتها نوروي وحا كم دهيت أما كغب قادتي أساسياشي خاتمه ستيت الصومالية قيب وين هيك هاي runtii markii khaatimo la asaasayna waxay ka bilaabatay fikir ay isu keeneen dad aqoonyahan ah oo Soomaaliyeed oo gaar ahaan ka soo jeeda deegaanka khaatimo kadib markii la baaray lana ogaaday inay dhibaato weyn oo mid gaar ah iyo mid guud ahaan Soomaaliyeed inay deegaanka ka jirto ayaa waxaa la isla gartay in la asaaso ama talo loo ururiyo si deegaankaas looga saaro dhibaatada haysata walaalayaal khaatumo iskama dhalan dhibaata keentay sidaad ogtihiin waddankeena waxaa ka dhacay xarbul ahli dowlad Soomaaliyeed waxaa inoogu dambeysay 12 sano oo 12 sano ka hor markii dowladii Soomaaliyeed burburtay ay meesha ka baxday waxay noqotay in wadankii ummadii Soomaaliyeed deegaan walba isugu gaarkiisa ama maxaa ku raadada dantiisa isugu inuu isku tashado maadaama aanu jirin haday ay ammaan noqoto iyo haday noqoto maxaa ku raadada dhaqaale haday noqoto horumar deegaan walba inuu isugu isku tashado oo uu dadkiisa isugu daryeelo dhibaatadaas baaxadda runtii ummadda Soomaaliyeed in badan ay u baahatay inay ka baxdo Khaatimo State of Somalia walaalayaal waxay u taagan tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed ma aha wax u taagan beel kaliya khaas ku ah waa wax ummadda Soomaaliyeed oo dhan runtii marka laga hadlo tan ugu jirto shaliyada Soomaaliyeed ee halkan joogta waxaan ugu mahadnaqayaa runtii qayb weyn iyo taageero weyn bay ka muujiyeen sidii ay horgeli lahayd Khaatimo State of Somalia أنا سوق كوبيا runtii hadalkan waa laga badiyaa misaa wada badan golayaashka hadal ma yahay runtii waxaan leeyahay ku soo dhawaada sanad guuradii Khaatimo State of Somalia Norway waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ha jirto oo ha joogto waxaan leeyahay midnimada ummadda Soomaaliyeed ha waarto oo ha noolaato waxaan leeyahay midnimada ummadda Soomaaliyeed waa muqaddas cidna gorgorta lagala geli maayo waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ha israacdo oo ha midowdo walaalayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaan jaaliyadaha kala duwan ee Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay xafladatan nagala soo qayb galay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan idin leeyahay Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya dhulkeeda wixii wada dhulka ha gala Soomaaliya dhibkeeda wixii wada dhulka ha gala sokeeye iyo sheeda walaalayaal aad iyo aad baad mahadsantihiin ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inaan ku noqono dhulkeennii oo barwaaqo ah oo midaysan oo caalamka kale la mid ilaahay saasaan ka rajaynaya aad iyo aad baad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi
إلى القبيلة الدوري وحاجة قال يبان إلى المعامل الدوري وحاجة قال يبان إلى الشخص الدوري أولا المشي واحد ما تبغى يسلون بالفرحات marka waxa la yiraahdo inuu xajiinaya ama furaynayo ama inuu furayo way leeyihiin shalay xatmada ku jira shalay soo marka waxaan maraynaa hadda dadka xogaa khadmada ku jirno khadmada oo isku xajinay hadda wanaga kale bulshada ayaan u gudbinaa waxaan mikrofoonka hadda ku soo dhaweynaynaa oday Soomaaliyeed oo la yiraahdo Umar ku soo dhaweey السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام بعد. وعنها إلينا إله سبحانه وتعالى ونقطي وأدون يعلمنا هاي عقيرة إنه يعني مرة كذا مرة كذا ومها إلينا. وعنها إلينا خاتمة Servant of State وحفلة دامك في مع وهي أنك وصوماليا. dadweynaha sharafta leh oo meesha isugu yimid oo Soomaaliyeed oo ka soo qayb galay xafladda kan maadaynayna miidiyaha fanaaniinta waxgaradka aqoonyaha dadka Soomaaliyeed oo meesha isugu xildhibaanada meesha fadhiya qaarkood baan maadaynayna waa laga hadlayo waxaa la yiri ninka dawladda hadda ku gaabinay wuxuu yaa laga hadlay waxa waxa qof xal yahay ama qabiil yahay ama degmo yahay waxa weeye horta runta in la sheego waa wax aad wanaagsan qaatumo waxa uu dhalatay waa la sheegay waana ognahay waxa uu taagan tahay qofku waxa akhrisay iyo qofka waxa akhrisan waxa ka akhriso وحوي وحب كانت هاي من مال أمة الصومالية دول كانت وانا من هذه الدول الصومالية لكن سأقول كانت هاي ومال سنة هذا الصوماليين هاي ومال بس حقيقة ما كلا هذا هاي وحنقول للسيدنا وبدي أقول لنا إن كاتبنا إن أنا مسلم إن أنا صومالي نقول waxaan marka qaad ku siraada tunta loo idin sheegay nimanka kan qaatumo highway boqol gaari ku ordayso oo iskala ordaysa ya ayagoo moodo wada kala yimaada ka kala ka soo inta war Soomaali baa war walaal baa war daris baa war kala go'aan marabo oo aan taageerin oo aan maxaa tahay cod fiican oo aan dhaqaale ولا تنميه كيف سؤال لماذا دينا وين تاسكله وحرود قال كمان كنت إلا شيء أنا واحد يعني أنا بعدت إنك سوف يقال ولا سوف يقال تماشات يا محايته بدوت الكلاس سوف يقال هذا لا يعني تشير مسوان مكشوف حبل الموت باشا البهانتين كل ضدك سومالي تاريخ أو قفي أو أخرسي أما يبدأ يستوي شيء أو قفي تاريخهان وقرأه بلا سومالي إيه كسر جد يقول ولا سوى بابا أي لا تقارنين عدو يبقى شيء يكاد لا تقارنين قبيل كلي كسر تنسى لا تقارنين هي كل حتى سومالي كتير وألقته كيس كأفريقيا هي أفريقيا الملوك وذاتك شركة ملوك واحد يعرض مقرد على رباعتها ينجح عايز أكبرك وإبداعات بيقولوا دقيقة كل شوية أيوة ضغط الصوماليين أولا وتجار منهم وأسكار منهم ومحاها مساج منهم ويردق على معيار يسمونه كوننا كبرك أي شغلة وين كوزوجي عين يو صار يسرع
والبعض أنا بخلي شخص أهم عمر حام أنا هو أدينا رينا وحال يجمع رينا يا صومالي ما كل جلدي أنا صومالي ما كل كذا كاس أنا هذا أنت يا أنا ما أنا أهل معي ولا أنا معي صومالي معي وحسنا كاس بس هذا مكان كاس رجلي كعود ردافين ومحاط إلى محضرون ونقص أنا ما نشيء لكن واحد شيء وشيء والبهانة وحلا يقاتلون صدق استيد في الصومال ولا يا عن رأس مالو عن الآن أجدني حتى هو يسمع على ما ربنا يهدي الصومال لنا هدي أنا صومال المدربين وأنا صومال المدربين ما كان استقبل واستقبل هذا أنا ما بدي مكان الله لكن واحد شو أنا ولا كل شو ذي وعم كل شو ذي عقلي هم الدنيا دي بروح سياي يمكن أن وكفوق بسوق بيننا وبيننا وضع عليه عبد الولي أمبارح ولا وحنا السلام يا سلام الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما ممكن قادم مستير وحنا طاقة سنة ليش عصر وياس وراح ولا حاجة خاطبه وحنا كنا طاقة هيجي يهو أبي أدم وطاقة وحنا أبي أدم ودقنا وعقبات هي الوهن كلها يجي بدل ولا ودقنا ومتري عقبات مركي عن حولها هذا عن كذا ومتري وانتشل وحنكتشل هرمون كيجيو دنا هيجا يوم الدايدا وحدة طلع تشل ميس وأنا أقول ما هو ولا عقبات الشيء هذا تشل ميس خاتمه دنا هذا إنه هو بنارم بان أفي أدي بلغير تاجر السلام عليكم ورحمة الله marka hadda waxaynu u gudbaynaa gudoomiyaha xisbiga tayo party عبد الخالق كسلو عبد القادر خليفه هذا هذا كله بسم الله الرحمن الرحيم والله مرشد سويم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت كدي مر لبعض هدي عن هاي هولدانا يقطع جراش تسمع تايو بارت تسكي سنوري وحن لنا هاي هولدانا يو تاجراش هاتوبا ستيت هم بديو أيام لنا هاي هم بديو كأدن سنة دولة كسورة أساسكي تايو أساسكي هذا هاتوبا ستيت وحن بدينا وحي بين كسومي وحنا بتجينا إن وحكي بدرين كسومي أنت كذي وحنا مراحل ستيت كا iyo taageerayaasha yaashooda ku bogaadinayna uguna mahadinayna mowqifka ay ka taagan yihiin midnimada Soomaaliyeed arrinkaasi waa arrin ay sida hore loo sheegay taariikh u leeyihiin waa arrin haddana looga fadhiyo waa arrin Tayo Party iyo taageerayaasha Tayo Party iyo Khartoum State ay ka midaysan yihiin runtii arrinka waa dadka ku mahadsantihiin Soomaaliyeed hadday maanta idin mahad celi weyso bal mustaqbalka idin mahad celi doonta haddii Ilaahay yidhaahdo intaa kadib halkudhigyada annaga xisbigaana waxaa ka mid a talo iyo tayo iyo tanaasul ayaa ka mid a sidaasi awgeed waxa aan jeclahay inaan halkan ka sheego in ummaddeena guud ahaan ay u baahan tahay taasina ay Khartoum State iyo maamulkiisa la khuseeyaan
إن وحي خلاف جيرة أما دجان هذا أما قبل هذا أما كلام هذا لا كلام هذا سي نما البحر نما ودايلوج يكمبرومايز كوبيس كريسان لو وجهه أيام أبصرنا يهجرينا وايو بروبلمكو ما يشو هاد حال كريه مجهول بروبلم تستوي يلك طول حال ويلك لكن وإلا كلا dadkii galashada u lahaa iyo rabitaanka ehelka u ahaa in ay alternatives ama xalal kala duwan soo jeediyaan taasi nooc walba ayuu noqon karaa qaatume deegaanadeeda qaatume gudaheeda u faahfaahsayaa oo rabaa ka bilowdo kadibna uu gobolka ku fido kadibna Soomaali weyn uu u fido baa la doonay marka arrinkaana kala qoyaan ahaan waan ku dhiirigelinayaa marka in la sameeyo in lacagihii loo sameeyo waxaan tara ku soo jeedinayaa in maadaama hadda ay nagala joogaan madaxdii Khartoum State ay nagala joogaan halkan waxaan soo jeedinayaa walaalayaal inaad tusaale noqotaan oo aad 20 sano waqtigii sayidka tusaale u ahaydeen inaad haddana tusaale mar kale noqotaan oo aad samaysaan oo aad maamulkiina ku dartaan waxaan anigu kolley ku magacaabi lahaa Inter-Somali Dialogue Committee guddi yani Soomaalida arrimaheeda gaarsiisan oo ka kooban salaadiintiina sharafta leh aqoon-yahanadiina culumadiina standing committee guddi taagan ee jira ee idin matala ee adinka iyo dadka kale deegaanka kuwana dhasheen aan garanayno laga bilaabo ilaa iyo Soomaalida oo dhan ilaa iyo federaalka dad idin matala garashadiina iyo wanaaggiina ku yiqiina u bandhiga dadka kale inaad samaysataan ayaan soo jeedinayaa taasina waa talo oo moral noqotaan macna arrintaasi arrin macnaheedu muhiim waayo ayaa la fuulaysanay waayo marka aad dhihi kartaan anagu state baanu nahay maamul baanu leenahay nidaam baanu leenahay ciddii doonaysa inay nagala hadasho wax danteena quseeya ama deegaankeena quseeya ama qaranimada ummadda Soomaaliyeed quseeye waa committee-ga baa naga wakiila committee-gaasi istiraatiijiyad ay diyaariso maxaa nagala gudboon haddaan nahay Khartoum State dadka deriska dhalaa maxaa nagala gudboon yani waa mabda ahaan waa la wada rumaysan yahay midnimada Soomaaliyeed way rumaysan yihiin taageerayaasha Khartoum iyo madaxdeeda laakiin waxay u baahan tahay in practical arrimo la hirgelin karo practical program iyo istiraatiijiyad loo baahan yahay lagu fuliyo lagu gaaro arrinka waxaa la doonayaa dadkii marka committee-ga waxa ka shaqayn lahaa ee qaabeyn lahaa si dadii marka aad la kulantaan cid kasta oo kamida dadka kale waxay kala dhaxayaan Soomaaliya Soomaaliyeed in aad dhihi kartaan waa tan istiraatiijiyadeeni mowqifkaadan qabnaa sidaadan u wada shaqaynaynaa diyaar baanu nahay waa tan cidina mataraysa in aad tusaale ku noqotaan arrinta civic-nimada iyo dialogue iyo compromise-ka waa arrintaasi waa raay aan soo jeedinay tan labaadna in standing committee aad samaysataan oo aad Soomaalida model u noqotaan wax lagu xalliyo taasina waa tala labaad intaa kadib waxaa kolley waa wada joognaa oo wada shaqayn doonaa haddii ilaahay ilaahdo waxaana wada rajaynaynaa guul mar kale qolyaan idin leenahay waana salaamada dowlaha secretario Cabdulqaadir Khaliif aad iyo aad u mahadsan yahay waxaan haddana ku xojinaynaa oo u yeeraynaa oday Soomaaliyeed oo la yiraahdo waxa weeye naalasa haddaan sheegay dadku yaa naalasa dadku iyagaa la soo gudbiyey qofka isaga ay istaago markaa siduu qofka shakhsiga waa weyn maxaan ku qornaa yaasha shacbiga reer Khartoum dibadda iyo gudaha meel kasta ay joogaanba oo anigu aan ka mid ahay in wanaagsan iyo hambalyahay runtii anaa ahay looba dadkaan taariikhda ay leeyihiin caawa dhan baa laga sheekeynay halkaa waxaa ku masawran waa sayidkii intii Soomaali ugu taariikhda bunaa baabadiisii sayid maxamed cabdulla xasan ودولية أقول سواء كان وحيد كتير أولي سني صومالي حرمونا في النمو أن هجر دعوة شقين والولد هي مقبل قاطبه فجيروا اللي أول شيء أنا وغيرها هل جودي أول شيء لو عام والبريد الصومالي مر
mar haddii sidaa saaxiibada annaga u garano waxay leeyihiin annagaa laga rabaa inaan garano isweydiino waxaan leeyahay ciid wanaagsan hambalyo فرحتي سلوم وقالي مامورة القاربة كفر وحاسة ليهدا وروحها وكمتها أنا مامورة بودا مامورة بسوتي لمن كوالها ورانا ورانا قعدت يا دروبي وكفر على من حيسي sida awlaada kama xumin midnimada Soomaaliyeedna sida awlaadiya iyo bulshooyinka iyo qabaylada kale ee Soomaaliyeed oo dalka ay ka talinaysan Soomaaliyeed horana nimankii sayidku la sheegayo Ingiriisku dowladda Abu Dhabi waxaana aaminsanaa sida halka laga cadeeyo wasaaraha kaliya ee Soomaaliyeed waana rajaynayaa baalka aan Soomaaliyeed ka jiraan hambalyan leeyahay madaxweynaha qaatooyinka Soomaaliya shacbiga kullu meel kasta ay joogaan hambalyo leeyahay aqoon walaalo حسنات يا أبو كما سيهاي هذا في صغيرة المركز والله يقول أن كل شيء من رجع المرة نجي إليه مركز ويوجد بنا نجي قبلها فنقول إن وسيلة عشي وبعض الساعة أفكار قبلها وقت عاصمة استيل الصومال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبسلامتي من دمانتي أخيار تمام كان شرفتي إنه وجدني إلينا لو ذاكتو فرحتنا أنه ما تقول بالدليل إن أنه خاتمة حسكي بعد أسيب إحنا أبي شرف وين بقيت هاي مالتا قبلها خاتمين بقيت وقتها لو علينا كهدو يجنا وأمها المكان maanta inaan ku bilaabo arrin aad qaali aniga igu ah reer khaatimana qaaligo ah waxaan rabaa salaan inaan u diro dowladda Soomaaliya madaxweynaheena ilaahay hanoo daayo baarlamaanka iyaga ilaahay iyagana ha caawiyo hawshay loo qabanayaan iyo shacabka Soomaaliya meel walba ay joogaan marka wax la xusayo iyo farxad وإن الأوجان محاول حصية هرت مركي هون هذا تعال الأوجان وحين نقول يسكب البول ما عنده محل حصية ووح خالي ووح نوصل دنتي ووح نوصل دباتوني ووح عمرت الوقتي وغياش الوقتي سفر للدري مال يحول ينف يعاف مال بقى نوخرنا وح عيال معها ووح دحال نوعه ووح الأولوياش كهلي لنقول بردارية لنقول كرية سومالي باتيه سومالي بان هايبرون لنا أنا بهدان نحي ريركا يصير كده كسر شون خاتم ستيت قف سومالي دانو دبنا ملها قف سومالي دان دبلا ربنا ملها قف سومالي بدي باتدي سؤال إنه دبقي ملها أنا بهدان nabad baan rabnaa deegaanada iyadu aad bay u baahan tahay in laga shaqeeyo in xoolo la geliyo waxaanu ka mid nahay gobolladii dhibaatada ku dhacday markay central xukuumaddii ay baaba'day annagoo markii horeba aan wax lanoo samayn baa intii yareed ee dhaqdii yareed ee nagaga tegayna baaba'ay dadka iyadii dhibaata xoolaha iyadii iska daa dadkii iyo xoolihii baa naga dayac marka anagu haddaan tashanay uma tashan cidna dhibtiisa waxaan u tashanay dalka yaga inaan wax u samayno waana dardara qofka lagu yidhaahdo ha tashanay xaq baan u lahay maanta oo kale inaan xooga afaano markayna
Soomaaliya taariikhda ka qorneysa maalintii aan khaatimo dhisanayay makhaayad isugu tegin geed hoostiisna isugu tegin hab dimuqraadi ah oo casri ah ayaan ku samaysan dadka yada mutacalimiinta ah ee akhyaarta ah ee sharafta leh ee dhiig weli ku jiro daafaha adduunka qaxooti ku ahayn way isku rufsanay email ha noqoto meelo la iska arkayo ha noqoto telefoonno la isu dirayo ha noqoto meel walba way sanaanayo udheerkii ugu wanaagsanaa ugu quruxda badnaa ee labdan aan isugu diray lacag baanu dhignay dalka iyaga lacag baanu u dhignay United Nations ama balin gaal la uga tegay gaal annagoo kala fekeraan isugu niri annagoo qof walba fikrad cusub wata ayaan meel isugu niri albaabadaan isu xiranay telefoonadaan wada xiranay qof walba fikradiisii buu dhigay isma dilin kuraasiis lama dhicin gacana isuma qaadina waa ismaqalnay hadalkii gorgortan buu galay 3 habeen ayaa jimaha la isu dhigtay cidinagama maqnayn rag iyo dumarba culama ismada iyo khayr laha siiyo meel walba ay joogaan xal baan wada gaadhnay maxaa baan loogu jirtaa badan baa waxaa lagu yiri ku dhawaaqa waanu diidnay annagoo qurba joog ah dadka waddanka gudihiisa ku jira aayahooda ugu talinayno waddankii baanu arrintii la tagnay dhibaato walbaa nagu dhacday eerboortyo aanu ka degnaa lana xidhay maxaa lanagu xidhay shirkiyaanu dhici waa u dulqaadanay shirkiina waa noo dhacay dhulbahantana waa isu yimaadeen rag iyo dumar waana tashanay ka noqonna mayno khaatuma socotaye maasha allah haddii maanta aan isweydiino oo dadka badan iyo saxaafaddu ayna weydiiso maxaa idiin hagaagay horta arrintu waa sanad wax badan baa loo hagaagay maanta kuraasidaydii lagu shaqaysan jiray nin walba uu magacaabi jiray khaatuma state baa magacaabatay oo barnaamijka ku fadhiya maalintii aan ku dhawaaqnay khaatuma magaca dalka uu ku adkaaday si aan u hadlaynay u qaylinaynay khaatuma kheerle la wada maqal waxaa ugu wanaagsan ee noo hagaagay maanta dhulbahantaynan meel isugu wada nimi deegaanka iyaga annagaa u talina horumarkiisa ka shaqaynayna annagoo gacmaha iswada haysana maanta oo sida wada aragtaan xafladan oo kale hore nooguma dhici jirin alxamdulilah rabbilcaalamiin qaaraanka waa wada bixinaynaa halganka waa ku wada jirnaa dadka iyaga dabadaha joogana dadka gudaha talaada goynaya ayaan barbarkooda ka taagannahay insha allah waxaa jira arrin aan rabo oo aan ka faa'iidayo mar haddaa maanta fursaddaa lay siiyey inaan la hadlo madaxweynaha soomaaliya maanta alxamdulilah kumeegaarkii ka baxay beri baa laygu cagajuglayn jiray oo laygu oran jiray ingiriis baa wax ictiraafaya alxamdulilah ka badbaadi maanta xalkay qadiyadda aan isku haysano ka baxday gacan ajnabi gacan cadow ka baxday waxay hortaalaan barlamaanka soomaaliya odayaasha soomaaliya iyo madaxweynaha soomaaliya saa awgeed ayaan rabaa inaan daayirkay qofariin aan uga furo madaxweynaha mar haddaan gabadh ahayna magaca hablaha soomaaliyeed aan ku hadlayo waxaa jirta arrin aniga aad ii gubta mar walba inkastoo dhibaatada aanay kala wanaagsanayn laakiin dhibaatadan anigu waxaan u arkaa dhibaato diinta islaamka ka baxsan dhaqanka soomaaliyeed ka baxsan xanuun badan weligeedan la iloobi karan waxaan ka xanuun badan bay kama soo qaatay habla muslimaan nahay habla qabaan nahay habla guur rabaan nahay halanaga daayo dhibaatada askarigan loo soo diraya inuu shaqeeyo oo dharka loo labisay dee edabtiisii haddii la soo iloobay edab haloo yeela nimanka ammaan hala la siiyo madaxweynuhu sadaa madaxweyne soomaaliya aniga madax edab ha yeesho soomaali baanu nahay dhaqankaa la lihin akhlaaqha hala yeesho askariga dagaal baa loo diray waxaa loo diray dumarka la shaqayso edab hala yeesho aad iyo aad bay arrintaas
habeen u shaqaynaya inay khaatumo rigal noqoto waxaan xusuusanahay maalintii London aan bahay dad badan bay igu yidhi namyar waa gurigaaga joogtaa waa tegey waa ku guulaysanay maantana aniga sharaf bay ii tahay inaan dadkaas sharafta leh soo bartay ee wax loo sameeya taariikhdu ka sheekayn karta meel walba ay maanta joogaan hambalyaan ku leeyahay riyadii run bay noo noqotay khaatimo kacday waxaan rabaa si gaarana inaan tuso SCC oo dagaalkii ay iyagu bilaabeen iyo hadafkii ay u shaqeeyeen ay keentay inaan ku gaadhno arrinta khaatumo meel walba ay joogaan jiro jooga SCC la-aantii wax la yimaado waxaan rabaa inaan si gaara u xuso hablaha Soomaaliyeed oo mar walba u taagan arrinta khaatumo tii ku dhalatay tii qurba ku dhalatay mid walba waxay u taagan tahay horumarka gobolkaas iyo meeshay ka timi iyo farxad bay noo tahay maanta inaan dadkaas oo dhan وقبلنا بيجي عليها على هذه الأوضاع صنعي مركا مرة بعدين المركا كان هذا كي يضمن شاكي يفرحدي عن بقتي أنا ممكن سنة لكن سمعتها عن كسر ويننا كبيان وين الصوماليات هذا العالم لما تبغى سلامة المرضى الصوماليين waxaan rabaa inaan ka tiriyo gabay la yidhaahdo kulamada bifaa khaatumo gabaygaas wuxuu xuseeyaa gedigad martidan soo gashay sharaftaan loo geystay soomaalida gedigad martidan soo gashay sharaftaan loo geystay soomaalida midnimo doorisay hortanaa joogta gacmaha furan salaantii kalgacad idin guddoonsiiyey gacmaha furan salaantii kalgacad idin guddoonsiiyey goolaweyda khaatumo halkaad garabtaa joogtaane war gocan tanex nooga yimo gacal war gocan tanex nooga yimo gacal sameeyene geesiyaada darawishtu waa gushayaliye gibdigii mafruucu waa gartaan say ku galayaane inaaguna sidoo kale haddaan daacadnina gayno waynu gaadhi goobtaan ragniyo guula barbaxaaye gaarashiyo inaanka wacan geliya latiino garashiyo inanka wacan geliya laftiina adduunyadan gashkiya saagadiyo horwardada gaadhay adduunyadan garaafigii dhulkiyo horumar goraysa adduunyadan gacmeedadii la dhigay qamarka gudkiisa adduunyadan gaajiyo gahliga la dagaayo inagaydi kugoloosataan baad ka garatee soomaalka gudubtaad gashay soomaalka gudubtaad gashay wadhifiyaale aradkeena gaacsanay nimcadu kor gaanayso aradkeena gaacsanay nimcadu kor gaanayso gaaramiyo lahaybaa ku yegi wagajiyoode macdan galacde gaasiyo batron goodhamiya dhayo gidigay dadweyniyo kaweynaynaya weliyaada garkaa iyo garkaa geeswan kor daatay beerahan gabdhacayo wixii guran la hawaayey geeskii wacnaiyo halkay gaydhaan miranaysay geyi horona ayaa leenahiyo guri barwaqeed gaarashiyo inaanka wacan geliya latiino gaarashiyo inaanka wacan geliya latiina geedawayo maroodiga weyneydin dugareede wiyagooda jeergaaraniyo geliga hortaansan gisilooda geerno bartiyo farowgaadogaya
انت وضع كماني وحوله دورك عايشة سوداء قلبك سريع عمك جمراني وقالوا قالوا 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 يا روكو انتهى بقولتي يا بابس قولي يا دبوري انت صدقني شفت الرجل لن هداي قلتاني يا مبسوطين كي مجدوري يا رجل قال حالي قد صدق هذا القلب قولي المن فربطنا بدو قبليتو كنت صارك على نودي وقبل بديسو قبل يوم جالس كيوم مسكرارتو جالس كيوم غاري إن واتقينا حبكنا كنا وعاوشوا وطيرتنا كناية بدي يبرمك يبرم جيشكي شعبك ناري بوش مهدينو وعيوة الله بطلو كتبي دورة بوراوين إن قاعد تصنع حبوكنا كركراي أبوك بلد يا بني سيهاي حنفيا إن شاء الله مركا كلمة هي كل ما يكون صار غدا مركا حتى وقاعد يسولو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين أما بعد إخواني وأيدي السلامين وحيد السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وحنلي هاي هنبلي أيام وحنلي خاتم السيد كان سنتي سيلاي وحد جابريا إن عمر دير يا عاصمات يا برواقة أتوقع سنة دار الله ورقمنا وحيسي أضياشي نقول يقول بكل وحنا ربعنا من هالك عن كشيله نردو وحيدا نردو دين الإسلام كا وهذه المسنتها المالية ودارس وجهة هذا نبض يسن دين بني آدم مسن ما آمن سريد هذا نبض كشغي هذا نبض كشغي إلهي ما آمنين أنا أصوات هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وحول لن تدخل الجنة جنة المجلس حتى تؤمنوا إلى أكامنتان ولن تؤمنوا من آمن إنسان حتى تتحابوا إلى إسجعلاتان ولن تتحابوا من إسجعلان إنسان وهل أدلكم على شيء من شيء وهدات سميسان إسجعلان إنسان وجنة أكل إنسان ووراء أن نقول سميدين شيء نو شيء يا رسول الله حكومة أو شعب ديدين أو جائرة لكن حب بدل أو هدي لا تعطي دبارة أي مبنى يسمي آخري أدين كوسيو أو دبارة كفول من إيمان يسوع وإلا إسكدايا إلى أو كدمنا شيخ هو مسجل من القاهرة مسجل من عين جوز وقبحي القاهرة ونجولني مركب هاي تصب حال شيخنا هذه محاجران ما دون قالوا
وحوي هذيك المساس إلى الله يبي هذيك أنت أسترس نقاني أو قاهرة ولا جوني أو ميل ولا جوني أساس يقول هذا ليس مكاسائر بليف فسر وحوي الإعجاز كفر المجروية حكومة نوع عمان كتاين أو هذيك كتر الملتين أو دولي أنا دولي ما بالغيسان ما بالغيسان وهذيك دولي كتاين مية إلى هو السيدات وحن كتوسها المالنا المان تأهينا كتوسها وحن سكوار لي شيخة سياشر يسدح لي وحن سكوار لبوجي منك أنت الله من عريسته حسين برضه سكوار ميت كيلو يا جد اللي بود دوجاي دربيل اللي بود دوجاي لسكونا ما لسكونا وهي واحد دينا واحد الله يسميه تطلع الجيل كورنا وير ما أنت سدح عليه شلون هذه الساسي ده هي كورنا وير ما فلا تقول هاي لا يسوي من شيخنا وحاي أنا واحد الله يكرمه مركو وحنا لا هذا وحنا قصة ولا هذا وراك هذوك هذا خاتمه ورانيك وحنا رئيس كينا وتشتغل كفرها للغير وكتشتغل أنا هكذا كفرتنا هاي وحنا أي سنة أو تاريخ سنة هاي خاتم استيقين ولا توك أيها خاتم وراها أهل كريم مدحنا كل وحنا رجينا خير أنا كأسكري وأنا هاي على كاس ميشو جيران جيران ما جالس وناك بحو وناك ما جالس حتى تنفقوا مما تحبون فيك يا ربي حكوني فيكم حكوني مرحبا علينا أنا خاتم السيد ولا الشعب كامل وحوار الشعب كهذا مين هذول يجي وإلى الثاني يكون الشعب أركض شعب كامل هذا كلام تاريخ الدنيا وفيري كل إلى واتن سنة أو دجال أن تجول إلى فات أن تجول مين الوضع عنه طبعا وليه بعيدا وليه سوى يجوزه أنا أحكي أنا نقولي أنا إنسان صغير أنا هي التاريخ الأمور الجديدة تذكير مريء إيمانيان وكان مسلم يوسعكم معي سأفرد معي منك مرة عمر ولا ترى الله أنت يجوز كيف يعمل إلى ترى الله أنت يجوز مثل كانت الدولة دي صبح راو دولة الآن إذا انتهت أصعب كذا